السلام عليكم ورحمة الله وبركاته walaalaha Soomaaliyeed waan salaamayaa maaragtay ka tirsan shirkadda Ombasif meel kasto aad joogtaan iyo waqti kasto idin tahayba waxa aan meeshan maanta isugu nimaadnay waxa weeyaan update-kii ka soo kordhay shirkadda Ombasif in aan isla share garayno ash CEO-geena maadaama xalay uu webinar degdeg ah oo weliba short notes ama xilli maaragtay aad u gaaban naloo soo dhigay kaasaan rabnaa insha allahu tacaala wixii yaraa intii aan ka fahamnay in aan ma aragtay isla sheer garayno sidaan idiin carabaabayba recap fuula ma noqonayo kan wuxuu noqon doonaa brief ama hordhac yar oo waxa weeyaan aan intii aan ka fahamnay ama ugu muhiimsanayd qodobada aan isla sheer garayno leaderskana gadaal ayay ka falanqayn doonaan inta aan ka tago marka walaaleen insha allahu tacaala way noo bilaabaya hadda waxaan u jeedaa 60 qof ya kollaba waqtiga la bedelay awgeed baan filayaa inay dadkii u soo xaadiri waayeen intooda badan laakiin ma caleesh insha allah fideogan baad gaarsiin doontaan biidni illahi tacaala CEO-geena ash ma xalay waxay ahayd taariikhdu 14kii maxaa leeyahay December 2023 short notes ama xilli gaaban ayaa waxaa naloo soo dhigay oo connected webinar dad aad u fara badanaa kasoo qayb galay waxa weeyaan waxyaalihii marka CEO-geena waxaa soo galay oo kaleeto CEO-ga shirkadda Maxamed Kamaal labadooduna waxayna siiyeen warbixin runtii aad iyo aad dhinacna u xasaasi ah dhinacna u muhiim ah dhinacna u excited ah saddexda dhinacba wayna siiyeen marka haddaan ku hormaro dhinaca maagta waxaa la yidhi mar walbaba xoogaa waxaa la dadka problemka loo soo hormariyaa si ay gadaal uga farxaan farxadda looma hormariyo gadaal si ay uga naxaan marka insha allah taasaa idiin horumarinayaa CEO-geena markii koobaadba wuxuu nala sheergareeyey caqabado jira oo muhiim ah oo annaga kolba dad badan aweeray ka ahaayeen oo way ogaayeen inta aan ogeyna gadaal bay ka ogaanaysaa waxaa jirtay dad leaderisa ama maaragtay founders ahaadaan ama nuucay rabaanba ha isugu jiraane oo ka tirsan waddanka Bangladesh in ay ma aragtay si qaldan ay u turjimeen maxaa la yiraahdaa wejiga ama brandiga Ombasif oo ay leeyihiin waa shirkadaani maaragtay maantaad soo galaysaa berri baad taajiraysaa iyo wixii la mid ah dadka Soomaaliyeedna waa waxa aan ka celcelinaynay oo aan habeen iyo maalin uga digaynay war arrintu saa maaha war fariista war kaalaya war Ombasif ma aha multi marketing maaragtay waxa la iskor saaraya ma aha war dad la keenis uma baahna war kaalaya waxaan inaga celinaynay waddan baa ku dhacay maantay oo beerta ku galay okay waddankaas walaalaheena muslimiinta aad baan uga xumahay in ma aragtay ayagiion shirkaddii markii ay arkeen qaabka dadkan ay wax u wadaan ayay waxay sameeyeen ayagiion shirkaddii la soo xiriirin oon caddaymadii iyo qaabka shirkadda u shaqaynaysa iyo wixii keena aan oranin ayay waxa la yidhaha brace release ay sameeyeen inay maaragtay warkii shaaciyaan shirkaddiina ay ku leebal gareeyaan inay tahay multi marketing inaynan maaragtay wax legitimate ahayn iyo waxyaalo la mida sidaas daraaddeed waddankaas marka dadkii ka tirsanaa oo walaalaha ahaa nuucay rabaan founder waxay rabaan ha ahaadaan caqabad baa runtii ku timid in akoomo badan la dhiliido in la xakameeyo in froze ama joojin xoogaa joojin ah la saaro waddankaas oo dhan hadday tahay paymentgiisii hadday tahay maaragtay qorshihiisii iyo soo gelidiisii iyo wax walba oo lagu cusleeyo sababtuna waxay tahay in ilaa arrintaa la caddaynayo oo ma aragtay ay qolooyinkaas releaseka sameeyeen ama apology ka bixinayaan ama shirkaddii caddayma soo weydiisanayaan ama ay maaragtay la soo xiriirayaan shirkadda sidaa daraaddeed ayaa loo joojiyey arrinkaas waana arrin fiican oo waxa weeyaan dhinaca positiveka haddaad ka fiiriso haddii aad horumar samaynayso ama meel u dhaqaaqayso wax kugu dhegdhega ama hoos kuu jiita weyn maysid sidaas daraaddeed waxaan filayaa inaanan timeka usoo set up garaynin ayuu isiinayaa inuu timeku gaabanayo o connecti waa saacado badan ba ahayd inaan yaro doorto marka aan soo create garaynaynay insha allah waa arkayna bal intuu na gaarsiiyo marka sidaa daraaddeed waddankaas caqabadaa ku timid caqabadaas ayaan rabnaa adinkana aasa Soomaali dadkeena Soomaaliyeed inaan uga digno meeshaad rabtid joog waddankaad rabtid joog
ha ku samaynin affecti adigoo irsaq raadinaya oo wax siyaadsa isleh oo customer samaysa isleh oo hore u soco isleh ha ku dhicin arrintan waddankan ku dhacday walaalaheen ah oo ha u koos garaynin waddan dhan oo raba inuu mustaqbalka ombasif ka noqdo wax inaad dib u dhigto oo halkaa waddankii caqabad iyo frozen in la saaro waddankii weliba annaga waddamada waxaanba ku jirnaaba aan yaro horumarsanayn oo weliba hadda ombasif sababaha ay frozenka u saarayso waddankan waxaa ka mid a xafiis bay ku leedahay looyaray ku leedahay dad baa ka shaqeeya oo shaqaalaa u jooga waa waddan dhan oo ay ka tirsan tahay oo shirkaddii xafiis weyn ay ku leedahay oo hal sana ay degan tahay ka badan almost hal sana ay degan yihiin oo waxa weeyaan meel loo raaca ay leeyihin marka ma rabaan inay waddankii la negotiate gareeyaan oo waxa weeyaan la hadlaan oo maarata wixii tusiyaan oo ay u sheegaan waxa ay yihiin diyaaray u yihiin laakiin waddan soomaaliya annagu kasoo jeednaa wax xafiis kuma le waxba weli kuma lahan waxa weeyaan dad soomaaliyeed boo shirkaddii ka tirsan keliyaha ku jira maybe they don't care like hadda adigoo third world jooga aad khalad samayso waxaa laga yaabaa in aad maaragtay waddankiiba affecti aad ku samayso durbaba gudoomiye sorry wadala hadashmiya sorry muda isaarnay inaan kulaala rabo waxaan ku dhihi rabay ma aha dowladda bangladesh maaha waxa oo press release ka dhiibay waa bank of bangladesh bangi waay may bangiga macnaha dee waddankii caqabad waa bangiga laakiin waddankii caqabad ayay ma aragtay arrintaas ku noqon kartaa marka walaalayaal waxay tahay waa mahadsantaha guddoomiye inay saxday sababtoo ah warkii unbaa degdeg ahaa marka aada u mahadsan tahay muhiimka waxay tahay inaad walaalayaal ka fooljignaataan shirkaddaani ma ahan multimarketing shirkadaha wax layskor saaro oo dad in la keeno wax lagu helo ma ahan ombasif teeda kaleeto ombasif waa shirkad lijamed ah sharci haysata sharciyaysan meel kastana sharcigaas waxaan ahayn aan accept garaynaynin qofka sharcigeeda ka leexda oo ku dhaca qaladaadkaasoo kaleeto waxa weeyaan ayakana consequensigaas ayay helayaan marka ma rabno in waddankayaga iyo dalkayaga iyo dadkayaga runtii arrintaas ay gaarto qodobada wax badan buu ka hadlay waxyaalaha lasoo maruu ka hadlay qodob runtii muhiim ahaa oo waxaa jiray dhahayey uu aad u isticmaalay si owgeena uu dhahayey waxa weeyaan wuxuu yidhi I'm quit to think quitting macnaha waxaan ka tanaasulay in aan ka fakaro in aan ka tanaasulno ombasif iyo macnaha caqabadahan iyo adaygan aan marayno inaan niraahno daset ma si wadi karayno kelmadda la yidhahduu yidhi macnaha waan ka tanaasulnay marka adinkana waxaan rajaynayaa inaad ka tanaasushaan kelmadda ah multimarketing waaye irsaq xaggeen u doonaa carar dad raadi ka tanaasul ombasif haddaad u connected subscribe garaysatay waad guulaysatay waxaad joogtaa position fiican intaad leedahay wax badsaa le wax beelay leedahay marka intaad wax badso is leedahay ha ku dhicin qaladkan oo kale iyo wixii la mid ah marka walaal haddii aad u connected iibsatay waad guulaysatay shirkaddaanna waxaad ka mid tahay kuwa irsaqa soo socdoon kadib ka sheegi doono ka faa'iidaysanaye ha degdegin oo ha ku dhicin qaladaad qodobka kale marka oo muhiimka ahayd waxyaalo badan uu ka sheekeeyey si owgeena aad iyo aad u fara badan marka dhammaantood lama wada kormari karo sidaan inii sheegay muhiimka waxa weeyaan qodobka kale uu ka hadla waxa weeyaan paymentiga annaga kolaba soomaali baan nahay oo lacag unbay naga maqan baahi lacageed baa jirta oo waxa weeyaan qodobkaas unbaa mar walbana riixaya si owgeena wuxuu noo sheegay dadkii lacagaha la baxay oo bendinka lacagahooda ku jireen in bottom from next week ama asbuuca soo socda in bottom loo soo saarayo ay ku adidgarayn karaan oo ay ku bedeli karaan paymentiga maxaa yeelay kaararkii maadaama lacag kula bixidoodii wadamo badan qaarkood wadamada qaar waa caadi laakiin wadamada qaar ay yara adkaatay reset inta la samayn lahaa oo dib wixii dhan processka loo bilaabi lahaa bottom wuxuu yidhi waxaan ku soo daraynaa ay dadku adid ku samayn karaan ay ku dari karaan macnaha inay bottomkaas ay
iska tirtiraan kaarkii ay awal geliyeen oo ay kribto lacagtooda ku dalban karaan si fudud maadaama kribtadii loola bixi karo okay marka bottomkaasna by next week wuxuu yidhi mondayda waxaynu tijaabinaynaa bulky payout oo kribto ah ayaan tijaabinaynaa by monday oo weekan hadda labada maalmood inaga xigto maanta waa jimce sabti axad ay naga xigto isniinta waxay tijaabinaynaa successful hadday noqotana by next week oo mondaydaas ka bilaabanaya wixii ka dambeeya ayay waxay samayn doonaan in ay ma aragtay sameeyaan inay ma aragtay u fasaxaan dadkii bottomkaas lagu soo daro adid aad ku samayn kartid lacagtii bandinka kuugu jirtay ood rabtay inaad la baxdo oo kuu taagnayd ayaad waxaad samaynaysaa bottomkaas aad ku dhufanaysaa meeshii kaarkaad ka saaraysaa crypto wallet ayaad gashanaysaa okay marka waxaa laga yaabaa inaad welwel badan ku qabto ani crypto wallet malihi iyo wixii la mid ah crypto wallet uma baahna inaad adigu leedahay qasab ma ahan inaad adigu iska leedahay laakiin markaad adiga naftaada verificationka aad samayso oo aad adigu iscaddayso qofka aad tahay walletkaa rabtid ayaa lacagta kula bixi kartaa okay laakiin waxaa muhiim ah inaad verificationka adiga magacaaga adresskaaga waxaaga aad ku samaysato kadibna walletka aad rabta ayaad gashan kartaa ood kula bixi kartaa biidn illahi tacaala waa sidaan ogeyn haddii ombasif ay iyadu sharci cusub nooma ay sheegin oon kribtada la isticmaali karin qof kale walletkiis sidoo kaleeto waxaa muhiim ah oo iyadana back officeka maalin shalana naloo soo dhigay dadka isticmaalaya kaararka in aad adress saxa ama wallet isticmaal ama kaar bangi isticmaal marka aad wax iibsanayso in aad kaarkaaga iyo adresska meesha in ay isleeyihiin u fiirso waxaa dhacday cilado badan oo runtii wadamo badan caqabado ka haysta oo waxa weeyaan qof jooga for example wuxuu yidhi qof jooga hindiya oo kale ayaa adress maraykan ah wax ku iibsanaya oo adresskiina wuxuu gelinayaa maraykan kaarkiina waxaa laga leeyahay hindiyo asagina wuxuu joogaa hindiya hadduu rabo no taasi ma shaqaynayso marka adoo soomaaliya jooga inaad adress kale isticmaasho ood wax isdaba mariso waxba kuma shaqaynayaan kaarkaagana waa la baloogayaa ombasifna wax dambe kama iibsan kartid sidaas daraaddeed waxaad isku daydaa kaarkaaga adresskaaga waxaagu inay isleeyihiin magacaaga iyo adresskaaga iyo kaarkaaga iyo waxaaga muhiim adresska ayaa ah inaad adresskaaga iyo kaarkaas adresska uu ku samaysan yahay inay isleeyihiin oo wax kala duwan aadan gelinin qodobkaasna waa very important in walaalaheenna soomaaliyeed ay ku baraarugaan wax markaad samaynayso si saxa u samee si maxaa la yidhahdaa u samee qorshaysan ha iska ordin hebelow kaarka waddan kale adoo joogtid waxa isdaba marinin adresskan iyo kaarkan meeshaad rabtaa wax uga iibsan kartaa qofkaad rabtaa wax kugu iibin karo laakiin waxaa masti ah kaarka iyo adresskiisa kaarkan detailskiisa ay adresska aad meesha gelinayso iyo kaarkan adresska uu ku furan yahay inay isleeyihiin okay marka please arrintaasna ha laga foorjignaado waxa kale oo runtii uu si ogeena xoog uga hadlay waxaa ka mid ahayd maxaa la yidhaahdaa in haddii ilaahay yidhaahdo ayadana belki bayoutka kribtada siduu sheegaba naga swigaan tijaabinaynaa uu yidhi haddii lagu guulaysto in ma aragta iyadana la fasixi doono oo waxa weeyaan wuxuu yidhi bamka markaasan wuxuu yidhi si fiican idinla sheer garaynaynaa oo processka iyo systemka wax marayaan wuxuu yidhi idinla sheer garaynaa wuxuu sidoo kale isticmaalay wuxuu yidhi already waxyaalihii caqabadaha ahaa intii badnayd waanu xallinay hadday tahay waddamada caqabaduhu ka yimaadeen hadday tahay ma aragta lacagaha hadday tahay wuxuu yidhi mosty macnaha waan awoodnay ama waan xakamaynay oo waxa weeyaan waan awoodnay in aan ma aragtay xallino dhibaatooyinka inta ugu badnayd okay oo ma aragtay wax yar oo waxa noo dhiman buu yidhi touch abis waxaa la yidhaahdaa guriga markaad for example guri baad leedahay guriga waad dhistay waad dhammaystirtay rinjigii baad marisay maxaa kuu dhiman waxaa laga yaabaa inaad meelaha yar koonara yaryar decoration yaryar meelo yaryar ood rinjiga ka tagtay aad dhammaystirayso intaasoo kale inoo dhiman buu yidhi ombasif shaqadeeda macnaha touch abis wax leeraa ayaa noo dhiman waan dhammaynay intii culayska ahayd okay sidoo kaleeto wuxuu yidhi
معناها inaan clear garayno lacagahana waan soo sheegay oo xoog buu u faahfaahiyey laakiin muhiimku waxa weeyaan Ombasif is here Ombasif way joogtaa wayna joogi doontaa qofkii shaki yar marka ku jiro oo warwar ku jiro oo waxa weeyaan ka shakisan isle oo Ombasif amaysaan dhacdaa ama ay maaragtay wixii si la rabay noqon waayaan warwar hadduu kugu jiray maanta ha kaa baxo Ombasif warwar kama jiro adiga la stress isku furin just be calm be focus oo connectigaaga iibso halkaasna joog maxaa ka halaabay kaliya maanta waxa laga yaabaa bishan ilaa 30keeda maadaama offerku inoo sii socdo waxa laga yaabaa $190 ganacsi dhan oo international ah ayaad ku soo gashay fariiso hadday maanta $190 ay kuugu jirto bangigaaga waad fadhin lahayd oo okay bangigaaga hadday lacag kuugu jirto xageed ula carar leh laga yaabaa inaad wiigas isticmaali lahayd laakiin hadda ganacsi la hubo oo waxay kuugu jirtaa aan ogahay million of times inaad ka ducayn doontid ayaan hubaa Ombasif haddii ilaahay idmo oo ilaahay subxaana watacaala wax walba watee aan qadarullah wax haddaysa dhicin we don't know waxa dhici doona sababtaa naftayadaba ma ogin waxaan berri mudanayno laakiin Ombasif waa ganacsi jira joogi doona noloshaadana aadan dib fiirin doonin haddii ilaahay subxaana watacaala kuu qadaro laakiin inaad ka degdegto oo waxa weeyaan wax yar oon macno lahayn ay ku dafaan aad baan uga xumahay sidoo kaleeto waxyaalaha uu si awgeedna xoog ugu celceliyey waxa weeyaan MLM-ka waxa loo yaqaan multi marketingka inkastoon soo sheegay wuxuu yidhi ma nihin multi marketing ma nihin shirkad maaragtay networking iyo adiga kaaga baahan shaqo yes shirkadaanu way dhammaystiran tahay hadday tahay xayeysiiskeedii hadday tahay maaragtay productgeedii hadday tahay maaragtay marketingkeed waa shirkad dhammaystiran adiga intaad isleedahay wax badso oo qalad aad wuxu sheegi lahayd waxaa kaaga fiican inaad iska aamusto okay haddaadan aqoonin shirkadda intaad fahamtay 100% wax saxa aada gudbin karin iska aamus okay marka xoog buu uga diray please dadka affiliate-ka ah oo maxaa la yiraahdaa marketingka samaynaya in ay xoog uga maaragtay foljignaadaan maxaa la yiraahdaa arrintaas wuxuu kaloo ku celceliyey wuxuu multi marketing ama MLM ma ahan buu sharci darro ma ahan wax sharci darro ah ma ahan wax khaldan laakiin oo shirkado waaweyn oo international aha MLM ah no problem laakiin anagu ma nihin marka inaad shirkadeena ku leebal garayso waxaynan ahayn oo qaab khaldan u turjinto waa khalad hadda dadkeensan ma faa'iideysid dad Soomaaliya xitaa waan arkay dhahayaan haddaadan Ombasif aadan dadkeensan adiga daan diilka adiga shaqadaada maaha yes shaqadaada waa guarantee Ombasif waxay ku siisay daan diil haddii aad iibsato productgeedan oo uu connecti ama midkii kale soo baxaad iibsato haddaad maxaa la yiraahdaa si legitimate ah aad isku proof garayso Ombasif dhaqaala aan xad lahayn ayaad ka samaynaysaa laakiin waa goorma waa markaad wadada loogu talagalay u marto laakiin haddaad tiraa waddo qaldanaan wax ku raadinayaa caqabadahaas walaalaheena kale ku soo baxay oo kale ayaa nagu soo bixi kara marka walaalayaal waxyaalo badan uu maaragtay si owgeena u carabaabay inta kale guddoomiyaheena u daynaya isagaa inii dhammaystiraayo laakiin hadda wax kale oo qodob muhiim ah oo kale oon idinla sheergaray runtii inta igama muuqdo muhiimka waxa weeyaan markii kaararka xaggeedana uu wax xoogaa ka hadlay wuxuu yiri macnaha culaysyada ama issuega maalin walba macnaha soo food saaraya kaararka xaggooda xoog uga hadlay laakiin muhiimka waxa weeyaan wuxuu yiri once we open kaararka markaynu furno oon controlno value-gana insha allahu tacaala annaga idinla soo sheergaraynaan laakiin kolaba hadda process ayaa ku socda maaragtay xoog wuxuu maaragtay ula hadlay walaalaha xibinta ka ah shirkadda waddanka Bangladesh inaysan walwalin inay maaragtay shaqadii maaragtay wada hadalka u socdo in maaragtay wax u xalinayaan aynan maaragtay warwar badan marka iyo waxyaalahaas la mida marka intaas ayaan rabaa insha allah guddoomiyahan inta kala siinaya war fara badana inta ku qoran guliyo gobonimo idin rajeynayaa guddoomiye cabdicali soon ku wareejinaya markaan dhamaasantii soo dhawo guddoomiye
ما شاء الله نفيسة غير الله كسيو جزاك الله هذه ما تنتهي وصح horena waa u sheegay walaalayaal soo dhawaada kheyr ilaha siiyo runtii on passive dee waa u jeedaan wax sahlan ma aha wuxuu markaysan sahlanayna tusaale haddaan usoo qaato hadda guri 3 dabaqa la dhisaayo qofka hadda dhahayo on passive awa wixina laga ballan qaaday lacagaa laga qaado lacagtii 200 goorman kala baxaa goorma eejida la isku fujinaa macnaha walaalaha dhahayo waxaa ku tusaale qaadataan aniga oo 3 sano kusii dhow kuwii ugu horreeyay oo 6 sano ah macnaha sababta aan weli u faraxsanahay oo waqti u gelihayno oo aan idinkana idinkugu yeernay ayaa waxa ah oo aan fahamsanahay xooggeeda iyo quwadeeda ha noqoto qaabka dhisika loo dhisaayo iyo inay tahay wax waqti qaadanaya oo qiimo leh iyo inay tahay wax ganacsi kii u dambeeyay ee qof bini aadamku rajeeyo ma aha mid sanad ku eg mid ma aha 6 bilood la mid ma aha lagu kala guuraayo 100 sano oo soo socoto on passive way jiraysaa taariikhi ka tagay magaci ka tagay dadka magacaas ka tagaya ayaan waxaan uga jirnaa safka hore marka hore waxaan ugu waajibay inaan fahamno maxaan haysanaa maxaan laga rabaa anaga waxaan laga rabaa sabr iyo duco iyo in sharciga on passive u hogaansano وحين اللي اسك داف وحين اللي سمايه إنا استببرنا أقول يري إلي جستار لقى يابا لكن ولا استببرا قفكم ما أنت ماشي بريك جوجو بريك مالكلو جوجو كرا الدنيا وحن لسميه كرا المري وحن لبركة المريها قدار لكن أي كاب أنت هواي أدو إنا وحن كسل جارتي أو جنتو ذا أتكتد تلافك رجع نقول عاش ضدها أو كنكتك من إيش غينا أنت سكى ويجلتا ألا ويجلتا لكن هداك قدس أطفر فريسو وتسؤون وحشو قف كل تما لو حان أنا قلت كده وتجابينه هنا لكن ما لم بما أنا كتابنا وسوء وقدنا يقول ويك بركي أشبه وشقيا نمك كلام وشقيا وأنا قلنا وشقيا الله ده قد كان حجينا هذا تلافك علاس كان تلافك كترينا هذا تلافك الدقيا تلافك الدقيا أسكت بدرينا من عسلان قبهنا إنه wax walba xal loo helaa taas waa taas haddii aan ku noqdo recapka nafisana way taabatay crypto bulky payout wuxuu yiri waxaan tijaabinaynaa waxa in la tijaabiyo waaye iyadoo la tijaabin la iskama soo deegi karo waa la tijaabinayaa isbuucaan tijaabinayno ilaa from Monday ayaa la tijaabinayaa adoon tijaabada muddo ay qaadanayso laakiin waa la soo deynaa bulky payment way sheegtay sidoo kale qofka bulky ku dalbatay crypto ku dalbatay waxay sameyn kartaa haddii hore u sheegna isbuuci hore dad waxa jira Karakane company la dhahayo la xiray oo Canada laga leeyahay ku dalbaday oo wallet ku lahaa marka maadaama company-gii la xiray waa inay wallet kale iska bedelaan oo shirkad kaleeto ay wallet ka furteen ay ku qoraan meesha isla markaasna haday rabaan lacagteena ay edit ku sameyn karaan macnaha wixii ay tirtirayaan file-kii waxay ku qorayaan wallet-kooda cusub iyo lacagta amount inta cusub ay rabaan taas waxay imaanaysaa markii paymentiga oo anaga notakeena dadka wax soo kala gareynaya ee lacagaha dhiibaan okay Soomaaliya walaalaha joogo oo aan arkaya qaarkood iyagoo Kenya jooga ay rabaan in Soomaaliya islaan Kenya joogaan meelaha ku dhiibayo waxba isdiidaya rajaksha meeshaas oo ka imaanaya laakiin maalinta ka dambaysa way xoogaysanaysaa marka walaalayaal muhiimaddu waxay tahay Ashraf Mufarax runtii waxa uu sameeynaa waa ka daacad rafaadka uu u maraayo iyo inta qarashka uga baxaysa iyo inta qofoodo behind the scene oo anaga aanu muuqanin oo ku howlan arintan ma cadadna wala xisaaba marka sheekadu ina maalin walba la ismotivate gareeyo ma aha motivation-ka adiga laga rabaa ina ismotivate gareyso oo isdhiiri gelisid oo aad wax gacanta kugu jira aad baratid laakiin waa lagu inspire garay karaa inspiration ama maartay waa lagu dhigi karaa waxaana haysanaa waxaana saan wala istusaalay karaa laakiin qofku wuxuu niyadiisu dhismaysaa markuu asugu naftiisa u korgalo oo raadsho waxa gacanta ugu jira waxa gacanta noogu jira waa wax qiimo leh wax sahlan ma aha guri la dhisay dabaqiisa dadtiraada bariga adiga oo dhismihii ku socdo oo ama halfway ama fiin laboratory wax la dhahayo in ashnaas ku socoto hadaa tiraahdo sariirta iyo dhaxdhiga aw joodariga iyo burkanta aawde war ma wala dhameyn u kaaday ha ku degdegin
weli waay marka waxyaabahan yarka ahoo ama ha noqoto kaar ciladiisa lacag la dhiibi la'yahay ama walad aan lacag ka dalbato lacagta imaan la'dahay oo weli aan la soo dhiibi garaynin subscription maaragtay 9 beri oo dhamaaday haddana 6 beri yaa iga harsan war maxaa talaa waxa soo socdo lagu soo socdo dhan maalin walba u taaganahay information-ka la siinaa waa idin sii haynaa wax stress lidaado haba yaraatay jir on passive ashraf mafarax hadda kor afkiisa waxaan ka hayaa haddaan lacag I do or die markaan dhahayo dhahay lacag haddaan u sameynayo wuxuu yiri I will not do or for die lacag inaan sameeyo aniga wuxuu yiri I will not do for die on passive idinkana wuxuu yiri I'm not going to do or die inaan lacag aday tahay shaqada it's not about money lacag way sameynaysaa on passive laakiin fikirka dhammuba ma aha lacagtu way tahay waa la helayaa laakiin ulajeeda kale ka dambaysa ulajeedada ka dambaysa ina fahamto waaye before adiga aadan aniga iyo lacag aadan dhihin waa ka gudbe sorry walaalaha qaarkood waa cusub yihiin idinkuma diidani ina heerkaas joogtiin haddaa ku cusub tahay laakiin hal sano haddana la joogtay oo webinaarada aa imaanaysay oo aad la socotay on passive arrinteedu ma aha kaliya in ashraf mufarax waa necbayahan dadka wax ka hadla lacag that's why multi level marketing u diida ganacsiga in la xirama rabtay shirkadda in la xirama rabtay may ha ku dheelinina maalin walba lagu waani jiro war sida saxda wax u sheega isla about money ka hadal bini aadamnimada ka hadal shirkaddan lacagta ay sameeyay doonto ma cadalna wala xisaaban shirkadda adduunka ugu lacag sameynta badan ay naqanay maxaa soo ku ogaanay inay tadaqanayso fiiri productkeeda fiiri ma hal meel kaliya nina wuxuu ka ganacsadaa Zoom kaliya nina wuxuu ka ganacsadaa Facebook iyo Instagram iyo TikTok ma TikTok iyo Facebook iyo Instagram iyo Snapchat oo ka ganacsadaa Mark Zuckerberg saddex waay saddexda kuwa ka daran oo free ahaa yaalo meesha wixii kaloo laga ganacsanayo iyagoo billions of dollars oo kadimi oo staff oo domain waa $60 billion waay oo kadimi kaligiis waa $250 billion kor dhaafaysa oo staff waa $30 billion waay oo connectiga hadda aan ku hadlayno waa 16 meeqa shirkadood waay isqabadsiinta la iska hadlaya waa la isqabadsiinaya si automation ay u shaqeynaysaa tadkeeno iyo heblow iyo multi-level marketing iyo no website lagu sameynaa xayeysiina lagu dira automation-kan AI kala qaybinayso hadda adiga hesho iyo haddaadan helin iyo haddii kuga koray helaan wixii dhammo la helo waa la kala tuura dadka waa la sima qof walba waa loo jeedaa inuu dad haysan waa la siinaa dadka mabaan there is no stress on passive walwal haba yaraatee inuu ku ha muhiimadda adiga aad rabto inaad kaliya aad ku mashquushahay waa inay noqotaa war anigu maxaan samayn doonaa caafimaadkaaga maskaxdaada waxyaabihi aad nolosha bini'aadamka wax uga bedeli ila aashan mufarax waxaan wuxuu kugu samaynayaa in adiguna dadka adduunya aakhira kaamila aad shaqaysatid oo sida oo wax kugu sameeyay adiguna aad dadka wax ugu samayso inaad ka fikirto waayo yaan caawinayaa maxaan qaban karaa yaa wax u baahan heerkaas ayaa dadku ka fikiraya maanta dadaa waxay gateen 20-30 founder position ay haystaan mid waxay u gadeen school mid waxay u gadeen masaajid mid waxay u gadeen inay boqolaal u kala gadeen u kala qaybiyeen u haayaan anaa ka mid u haaya 3 4 5 6 7 8 ma cadina wala xisaaban u haaya inaan ku sadaqaysto wixii ka soo bax haddii dad mas'uul leeyihiin mas'uuliyadooda aan ugu wareejiyo maalintii oo maradha marka it's not about ma joogto shaqada waa inay ka gudubtaa 200 iyo lacag iyo aniga iyo goorma laga fujina eejida iyo of course anaga dhama wada faraxsan aniga dana u jeeda maanta maarta shaqo ku daalan oo 12 shaqeynay cid iga degdeg badan oo iga rabitaan badan ma jirto in on passive ay maarta ay hagaagto oo maarta automation waladkayga ijaabkayga lacag ugu soo dhaqaan maalin walba ilmahayga iska dalxiiso maalin xajka iska aad maalin cibra iska aad qof walba jecel laakiin wax aan la sugin on loo sabray oo aan loo dhiidin lama helo yaa u dhiido haay
يلا عكتيس قليو هاي يا مالن ولب مارت لغو دغن yahay waa kan dhahaya maalin walba we go to hell and come back 3 times a day we go to hell ana af ingiriiska hadii af Soomaali lagu fadhiyo nooc kale noqonaya laakiin maalin walba wuxuu leeyahay naartan tagna asan ka soo baxnaa naartan tagna asan ka soo baxnaa uu leeyahay macna ma sameynayso Soomaali hadii lagu fasiro laakiin macna wuxuu ka hadlooyaa basically rafaadka oo maraya ha naqato bangiyaasha ha naqato sharci ku sharciyada dejinaya ha naqato dawladihii ha naqato founderkii aad u jeedo madaxda ka bato Bangladesh oo aan bagartu gelin oo waxay rabaan iska sheegayo oo maalin walba looga digayo han boqolaal obstacle marka waxa waaye ninka waxaas dhan u maraayaa wuxuu yiri uma maruuhayo aniga in lacag sameeyo rafaadkan aniga lacag u mareen lacagna waa haystaa uma mareeno dhahay waxaan u maruuhayaa inaan bedelo sharciga ganacsiga inaan bedelaan raba oo dadka aan u sheego in wax la wadaagaho inay wanaagsan tahay we are going to rewrite the rules of business ola sharciga ganacsiga ayaanu dib u qoraynaa marka kale we will rewrite the rules of business and we will show them in wax la siyaaho wala wadaagaho wanaagsan tahay nabada laga helaa caafimaad laga helaa dad isjecel laga helaa waana inta adduunka Ilaahay noo keenay waayba adduunka Ilaahay wuxuu noo keenay is nabad gelino isjeclaano Ilaahay caabudno arsaaqada asaan naga ballan qaaday no stress maxaa la soo dagaala maxaa la iskala marka dadkan oo greedska oo tuugada oo combination waaweynka iskale iyagu waxaan qiimaha inta keen dadka dhacay afar dadka saacajaabka lacagta ka buuxsaday ayuu rabaa inuu tuso inaysan qiimo ku fadhin money lacag ay saxbo ku fadhin waa shay qaali ah oo la isticmaalo oo lagu fushto oo beelo badan ka gudbihaysa laakiin ujeedadii loo abuuray ma aha in lacag kaliya sameeyso sare dhist waa in dhaxal reeb ila ka tagtaa waa in waa who you impacted yaad taabatay yaad maartay oo wax ka bedeshay noloshiisa yaad wax ku siyaadisay maxaa cilmi hood kaysay cilmi dad cilmi ma bartay aqoon ma siyaadisay adduunka dhan inta yaro joogto waa you have to ina wax geysato waa fal ina geysato ninkan marka wuxuu geysanayaa wuxuu ka rabaa inuu ka tago mid asiga adduun iyo aakhira adduunyada uu ka tago taariikh uu ka tagayo sharci cusub iyo ganacsi cusub iyo qaab cusub uu ka tagayo aakhirana markuu tago oo janno ku galay ila inta soo qofoodo bini aadanahu impact ku sameeyo maartay noloshooda wax ka bedelay mana aha lacag iyo digital ma ahayna waxyaabaha kale oo muuqdo qalabka oo cajiibka oo maartay oo si muuqaal ah ya adduunyada maartay wax ka bedeli doono oo invention ka hal abuurada ay on passive scientists yadooda ay maalin walba diyaarinayaan oo galo adduunka meel walba Africa iyo Asia jooga waxa waaye on passive waxaan ka ognahay anaga boqolkiiba 5 xataa ma dhamo 5 ma dhamo boqolkiiba on passive is bigger than you think mar walbana wuxuu aan bashmar yiraahdaa guys dream big muxuu leeyahay dream big macnaha waxa aad rajaynaysiin wax ka weyn aad ku soo foodle haday laqataay magac haday tahay lacag haday tahay on passive say adduunka wax ugu bedeli doonto wax walba on passive ka aaminsantiin is bigger than you think inta umuleysin in ka badan ayaan ognahay dhax ina hal mar idin sheegan wuxuu yiri waxaan ka cabsaynaa inaad maartay wax idinka soo gaaraan marka walaalayaal alxamdulillah aan dhahno faataxada aan ku kalmayno u duceyno dadka hawshan ku howlan yeesan naqanin shalay aheeday maanta in la soo deeyay aheeday maalin walba hebel waa la isballamina those kind of a negativity it doesn't work waxa waaye qof dedeji kartaa huna ma jirto qof hor istaagi kartaa huna ma jirto muhiimaddu waxay tahay in waxaan daacad laga yahay oo ninkan waxaan daacad ka uu ka yahay lacagtiisa waqtigiisa guliyo haya waa rabnaana rooba lagu waaye Soomaaliya hore u tiri waa rabaa rooba lagu waaye anaga rabo idinka rabtiin anaga dhamaan rabno in kala tuuro oo lacagta timaado oo aan xogaa yar aan iska degno laakiin ilaahay qadarkiisana way ku socotaa waqtigeeda qaadanaysa cid deji kartaa ma jirto
qalbiga khayr ha loo sheego and we will be successful ilaahay idinkiis oo horumarka iyo waxaan u soo galnay waa la gaarayaa walaalayaal soo dhawaada khayr Allah idin siiyo